maanta waxaynu ku jirnaa xilli adag oo abaaro daran ay dalka ka jiraan almost 7 milyan oo Soomaali ah ayay si adag u saameysay abaarahaas xoolihii way baabeen way baabayaan biyo la'aan daran ay jirta cunto la'aan ama yaraan xoog la jirta madaxweynaha ka hadlay maalmood official meelaha qaarkood degmooyinka dalka famine baa runtii ka jira xaalad adag baa jirta muddo kooban baan rajaynaynaa ilaahay idankiis inay inagu dhaafto xaaladani oo abaarta ah waxa loo baahan yahay marka dadkeenu inay baraarugaan in la kaco oo loo gurmado dadka Soomaaliyeed ee ay dhibaatada daran abaartu ku hayso saacadaan caawa halkan fadhino 7 milyan oo Soomaaliyeed dad aan ka yarayn ayaa xaalad adag waajahaya biyo la'aan ah cunto la'aan ah caafimaad darro ah xoolihii ay haysteen ee ay ku noolaayeenna ay ka baaba'een xaaladaas marka adag ee dadkaasi ay ku jiraan 7 milyan ee Soomaaliyeed oo wadanka geeska gees ah iyo kafal celinta dadka Soomaaliyeed isma laha dawladdu waa qaylisay waa dhawaaqnay waxaad moodaa in la caajisay oo si marna aan ugu qayliyeynay war dadkii waxa haya abaar marna daadad iyo floods baa jira ayaad moodaaba inaynu iskala qabsanay laakiin waxaan rabaa inaan mar kale aan dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda ku noolba aan ku baraarujiyo oo aan ugu baaqo inaan u gurmano dadkeena xaaladda adag ku jira waxaan samaynaynaa amaan jiraba guddiyaal waxaan abuuraynaa sanaadiiq waxaan horay ula hadalay haddana la hadlaynaa cid kasta oo dadka Soomaaliyeed wax tari karta safiirada dalka jooga oo dhan intooda badan taqriiban 90% waxaan filayaa inaan la kulmay waxaan dhammaantood u dhiibay warqado ay dawladahoodii gaarsiinayaan oo aan kaga codsanayno inay dadka Soomaaliyeed ay gurmad iyo mucaawino ay ka geystaan xaaladda adag ee dalku jiro qaarkood jawaabahoodi waan helay haba iska yaraadaan qaarna waa soo dhow yihiin laakiin si guud waxaan ogtihiin in lafteedu xaalad abaareed iyo xaalufnimo ay ka jirto guud ahaan caalamka oo dhan marka la fiiriyo arrimaha gargaarka iyo waxtarka caalamku istiri jiray